Xasillooni ayuu dhex dhigay Ilaahay si uu jidhku uga nasto daalka, diifta iyo dihaalka. Caqligu waxa uu ka helaa cawo uu ku soo ceshado firfircoonidiisii, halka qalbiguna uu ka helo deganaan uu kaga raysto caajiska, hamiga, iyo warwarka. Dadka badankooda cimrigoodu 3 meelood meel ayay ku qaataan in yar mooyaane. Haddana basharka badankiisu kuma baraarugsana nimcada weyn ee Ilaahay ku galladay. Dabcan waxaynu u jeednaa waa hurdada, oo aynu muuqaalkeennan ku lafaguri doono. Magacaydu waa Jimcaale Daahir, halkanna waa Salgaan Media. Dabcan waxaa muuqata in 83% dadka daawada channelkan aysan subscribe dhihin. Haddaba haddii aanad weli nagu soo biirin, adiga oo mahadsan, inta aadan muuqaalkan dhammaysan subscribe-ta noo saar. Waxaa jira khalad faham baahsan oo aynu ka haysano hurdada, oo ah in hurdadu ay caajis iyo kala daahsanaan baahsan ku keento jidhka, caqliga iyo ruuxda, oo ayna firfircoonaysiin hannaanada kala duwan ee jidhka. Laakiin cilmiga casriga ahi waxa uu sugay war ka gedisan wixii aynu hore u aaminsanayn. Waxa uu dhayda ka caddeeyey in marka aynu huridno, hawlo badani ka dhex socdaan jidhka iyo caqligaba. Saynisku waxa uu dhayda ka caddeeyey in qaybo badan oo ka mid ah maskaxda iyo jidhka ay aad u shaqeeyaan marka aynu seexanno, halka inta aynu huridno dib u habayn iyo daryeel lagu sameeyo unugyada jidhka ee waxyeeloobay inta uu jidhku soo jeeday ee uu ku foganaa hawlaha adduunyo. Qofku marka uu seexdo ee uu ku jiro hurdada, waxa uu maraa 4 marxaladood. Marxaladda koowaad waa marxaladda u dhaxaysa soo-jeedka iyo jiifsiga ee uu qofku laba-dhexeeyaha yahay. Marxaladda labaad waa marxaladda uu qofka u dambaysa hoos ugu sii dhacayo wacyiga weelayaha ahi ee ka warhaya wacyiga deegaanka ku xayndaaban halka uu qofku hurdo. Marxaladda saddexaad waa marxaladda uu qofku galo hurdo qoto dheer oo ay bilaabanto dayactirka iyo daryeelka unugyada jidhka. Marxaladda afraad waa marxaladda loo yaqaano isha degdega ah. Waa marxaladda uu si gebi ahaana u xidhmo muruq ka mid ah muruqyada jidhka. Inkastoo mowjadaha maskaxdu ay firfircoon yihiin, haddana marka uu qofku seexdo, waxaa si aad ah u kordha oksijiin isticmaalista maskaxda marka loo eego xaddiga ay maskaxdu isticmaasho marka la soo jeedo. Intan waxaa weheliya neef-qaadasho xeel dheer, garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiigga. Badi riyooyinkuna waxa ay bilaabmaan inta uu qofku ku jiro marxaladda afraad. 20% ka mid ah hurdada waxa uu qofku ku qaataa marxaladdan afraad inuu qofku maro. 40 heerna waxay ku qaadataa 90 daqiiqo. Marka uu qofku dhammaystaba, dib ayuu u soo bilaabayaa ilaa uu qofku ka toosayo. Sida dabiiciga ah, saacadaha hurdada ee uu qofku u baahan yahay waxay ka duwan tahay. Haddii aad seexato 5 saac oo aadan dareemin wax firfircooni darro ah oo ku dhibaysa maalinta ka dambaysa, inta ayaa kugu filan. Laakiin daraasadaha cilmiga ahi waxay caddeeyeen in saacadaha ku filan qofku ay yihiin 7 ilaa 8 saacadood maalin kasta, halka hurdada ugu yar ee qofku hurdo seexasho ahaan ugu filan yahay ay yihiin 5 saacadood. Inta ugu badan daraasaduhu sheegeenna ay tahay 10 saacadood. Dhanka carruurta, celcelis ahaan saacadaha hurdo ee loo baahan yahay waxaa lagu sheegay inay yihiin 9 saacadood. Cilmi raacayn uu sameeyey maxadka la yidhaahdo National Center for Health Statistics waxa uu xaqiijiyey 10kii qofba in 2 ka mid ah habeenkii seexdaan wax ka yar 6 saacadood, halka 10kii qofba uu hal qof ka seexdo 9 saacadood iyo ka badan. Celceliska saacadaha ee habeenkii waxa uu ku jaan go'an yahay hadyiga uu macallinkii basharku inoo keenay ee Ilaahay qur-aanka sharafta badan. Waxa uu ku yidhi: inna rabbaka ya'lamu annaka taquumu adnaa min thuluthay al-layli wa nisfahu wa xadiis thuluthahu. rasuulka laga soo wariyey waxa uu ku yidhi, Ilaahay agtiisa salaad waxaa loogu jecel yahay salaaddii Nebi Daa'uud, oo Nebi Daa'uud waxa uu ahaa mid habeenkii badh seexda, badhna tukada. Soonna waxaa loogu jecel yahay soontii Nebi Daa'uud, oo Nebi Daa'uud waxa uu ahaa mid maalintii sooma, maalinna afura. Isku geynta xaddiga hurdo ee sida dabiiciga ah ugu baahan yahay qofku waxayna baray macallinkii basharku. Marka lagu daro hurdada indha-casaysiga ee duhurkii, markii uu ina amray nebigu inuu ina lahaa duhurkii indha-casaysta oo seexda, shaydaanka ayaan seexanine. Halkaas waxaynu ka fahmaynaa inay iswaafaqayaan xaddiga uu nebigu ina amray inaan seexanno iyo xaddiga uu qofka caafimaad ahaan ugu baahan yahay. Aqoonta caafimaadka ee dhowaanahan la gaadhay waxay addeecday wixii uu rasuulku inoogu baaqay 1400 oo sano ka hor
ee ahaa seexashada duhurkii, sababta oo ah raadcayno cilmi oo tirabeel ah oo laga sameeyey daafaha kala duwan ee caalamka ayaa lagu caddeeyey in firfircoonida maskaxdu ay hoos u dhacdo xilliga gadiidkii, sida heerkulku hoos ugu dhaco habeenkii. Raacdeen cilmi oo ay sameeyeen culimo ka tirsan ururka American National Sleep Foundation waxay ogaadeen in seexashada duhurkii muddo 30 daqiiqo ahi ay jidhka ka saarto daalka oo ay soo celiso firfircooni iyo xorriyad buuxda. Cilmi baadhis kale oo ay samaysay wakaaladda NASA ayaa ay ku ogaatay in seexashada qofka ee muddo kooban oo 40 daqiiqo ah duhurkii ay kor u qaaddo hawlqabadka qofka 40% uuna ka dheefo dhaaditaan iyo soo jeed 100% ah. Haddaba, waa sidee xaalka dadka bartay hurdo la'aanta daba dheeraatay? Wax badan waxaynu maqalnaa haddii aanad seexan waad xanuunsani. Haddaba, muxuu yahay xidhiidhka ka dhexeeya hurdada iyo xanuunku? Dr. Tuwakar oo ah madaxa jaamacadda la yidhaahdo Texas Sleep Center and Cancer Center ayaa sheegay in daraasado badani ay caddeeyeen in unugyada difaaca sida T-cells ay daciifaan marka aynaan seexan hurdo inagu filan, taasoo keeni karta ku dhicista cudurrada sida hargabka iyo kuwo kale oo uu keeno fayrasku. Ilahaas ayaan ku soo koobaynaa muuqaalkeennan ee haddii uu ku qanciyay muuqaalku like saar, siina sheer garee. Haddii aanad weli nagu soo biirinna nagu soo biir oo ka mid noqo bahdeena.